Isimmada Puntland ayaa si adag waxa ay uga hadleen duulaanka qariska xornimada ah ee maamulka Somaliland ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka Sool. Isimmadan ayaa shir ay ku yeesheen deegaanka Buuro Wadal ee gobolka Sool waxa ay sheegeen inay garab taagan yihiin qorshaha dawladda Puntland kaasoo duulaan ka dhan ah lagu qaadayo maamulkaasi. Isimmada dhaqanka Puntland gaar ahaan Isimmada ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo shir ku yeeshay deegaanka Buuro Wadal ee gobolka Sool waxay shirkooda diiradda ku saareen xaaladaha ammaanka imika ka soo kordhay deegaano ka mid ah gobolka Sool gaar ahaan saansaanta colaadeed ee u dhaxaysa Puntland iyo Somaliland. Isimmada shirkan ay qabteen waxay kaga hadleen sida ugu wanaagsan ee looga jawaabi karo weerarka ay soo qaaday Somaliland waxayna taageereen go'aankii dawladda Puntland ay ku dhawaaqday ee ahaa inay iska difaaci doonto weerarada gardarre ee ka imaanaya maamulka la baxay Somaliland. Isimmada dhaqanku waxa ay kala sheegeen in deegaanada Puntland ay yihiin kuwa dastuurku u cayimay isla markaana ay lama taabtaan yihiin waxayna ugu baaqeen shacbiga dawladda Puntland iyo guud ahaanba shacabka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn inay u diyaar garoobaan howlgalka dawladda Puntland ay u qorsheynayso inay dib ugu soo celiso qaybo ka mid ah gobolka Sool oo gacanta Somaliland ku jira. shirkan ay wada qabteen Isimmada waxa ka mid ah Isimmadii goobta ka hadlay Garaad Saleebaan Garaad Maxamed Ugaas Maxamuud Ugaas Cabdullaahi Ciise Garaad Cabdirasaaq Garaad Soofe Suldaan Siciid Cismaan Boqor Cabdullaahi Axmed Cali Dabagooye Garaad Saleebaan Axmed Buraale Garaad Maxamuud Cismaan Bashqare Garaad Cabdisalaan Xasan iyo Caaqil Maxamuud Xaaji Cumar Camay. ugu dambeyntiina Isimmadan waxay isku raaceen shirweyne guud oo isugu imaanayaan qaybaha kala duwan ee bulshada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn kaasoo looga hadlayo xaaladaha kala duwan ee imika ku soo kordhay gobolka Sool iyo talo guud. Warayga nagarabka gaashanka u sheegaynaa aanu maanta ka midaysanahay cadow lagu soo duulay nafiya martoon inaan kala harin rag iyo dumar ciroole iyo caamo dagaal loo diyaar garoobo hal shahiido cadow wal iska kiciyo yaa nafta la jaraysan naftu marba ku asalaba goorgooy mayso joogsan waaye waa kibreen dadal tuulada basay marayaan waxaan u maleynayaa ayaan ka rajaynay inay maanta jabayaan baan u maleynaa waayo kibirka annaga ahaydnay annaga sidoo u kibirnay oo waxa ka qadanay daray naga dileen oo dhulka banaanka u diidnay oo kibirkay maanta iyagu ka naga dadoola wadaan maanta jabayaan dhulkood buuxsamay ka laga soo qayb galo dagaalka laga kaco dagaalka laga wada qayb galo nin wada qoriga qaado wuxuu yiraahdaa salaaka tafteen dhowr qolo oo soo dhaca koray gaalkii sarqamadii rabbiga saatirka sheegtay sanku baa kana uga soo gasray waxba sii wadi baayeen waxaan leeyahay dalka iyaga inta aynu kala dhado qabno ee saddexdan ama labada maalmood ay idin sokayso maamulkiina lamida gaatumo dadka dhulbahantay codka iyaga maqlayo diyaar garooba hadal kale ma jiro diyaar garooba waxaan ugu baaqayaa dadka beesha dhulbahante iyo dadka la dega waxaan leenahay walaalaha soo gardarooday hal abhiyo dhiigooda xaqdarrayaan lagu daadin saasaanu leenahay hadday diidaan sharaftiinna dalkiinna iyo cirdigiinna inaad difaacataan ilaahay subxaanahu wa tacaala baa idin baneeyey waana laydinkula xisaabtamayaa waxaanu leenahay midooba khayrka u midooba sharkana ka hortaga haddaad odayaaltiina waxaanu odayaal idinku nahay waddankeenna innagaa leh cid ugu maamulaysaana ma jirto cid Soomaaliya inaga goynaysaana ma jirto. arrintan laga hadlay qabsiga waa arrin meel ka dhaca weey waa arrin dadka sharaf darro ku ah qof kasta oo wax garanaya oo beesha u dhashay sida wax u socdaan iyo dambiyada dhacaya way arkaan haddaan odayaasha nahay waa hadal hadduu wax tarayo waa idin la hadalay ka kicin waxay la kulmi doonaan waxayan malaysanaynin wax laga tureeyay wax looga tureeyay wax la diidanaa wax Soomaalinimada iyo Islaamnimada ku xumaa oo ah dagaal waa dagaalamaynaa haddii aan deegaamadayada laga kicin haddaan taladeeda naloo dayn haddii waxa anagu mudannahay aan naloo dayn cidna sheegan kartaa ma jirto.